lagu weysa qaadan nin walba tubada way sacqasay bay leedahay tubada waxaa lagaa rabaa gacanta in yar oo biyaa ku shubo xir ku dhaq wajiga u furo xir saasaa lagaa doonaya bad haddaad joogtid iyo webi iyo tuba socota haddaad joogtid biyaha in lagu cayaaro xaaraan weeye rabbi ha laga boqo subxaana watacaala laa shaka 10 qofood biyaha ay ku weysa qaadato dadka maanta jira say ugu badan yihiin inay 100 qofood oo saxaabaa ku weysa qaadan lahayd waxaa lagu samaynayo laa shaka sida biyaha la yeelayo rabbi ha laga boqo subxaana watacaala weysa qaadkaas markau sidaa kuu noqda ka gadaal ayaad isu diyaarinaysaa marka qaybihii kale salaada oo ugu horeeya labisku yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid dadka bani aadamka markaad salaada dukanaysaan aratirkiina kan ugu qurxoon xirta dukumaanada ayaan lagu dukanin iyo maryaha aan jaajaxana lagu saala sariiraha magaalada markaad aadaysana waad isoo jaakayn haye marka salaada dukanada islaantana marada soo jaxda ku dukan yaad khiyaanaysaa maxaad ula jeedaa waxaas war ilaahay ka baqda subxaana watacaala haye nin dan oo weyn baad arkaysaa oo saatiga inuu soo gashado aan karin sukumaa xun baa garbaha u saaran markaa uu salaad dukan saatiga halkaan buu yaalla wax walba halkaan ba yaalla la war waxaas lama baahna rabbigiin ka baqda subxaana watacaala zayiga waxau alla idiin siiya inaad isugu qurxidaan cibaadada allah haye ku cibaadaysa markaad salaada dukanaysaan ziinadiina midda ugu qurxon xirta waa la yidhi subxaana watacala xaggee laga arkay arrinta ayada ziinada lagu sheegayo oo la xidhanayo waxaa sardi ah ninku dharka uu xidhanayo inuusan zayiga dumarka shabihin silsilad bau qabaa haye ama ma ahana sidii haweenka u labisan yahay salaadaan dukanaya la ama ma ahane marada uu ku dukanayo waxa weeye dhulka u yaallaa sarwaalkiisa lugta u qarinaya sidii dumarka loogu talagalay salaadaan dukanaya kuwa alla lacnado mutashabihiinta ragga oo dumarka isku jabaad kamid tahay salaadoodaa taqaani sad ka yeelaysa ilaahayna axadka musbilka ah agtiisa xilli iyo xaaraan midna kuma sugnaa waayo rasuulka xadiis sadaq sugan buu ku yidhi qofka musbilka ah alle agtiisa xilli ugama sugno jannadu xalaalo maahan xaaraanna ugama sugno naartu kama xaaraan ahan alla iska ilaaliyo rabbi ka baq subxaana watacaala haye waxaad iska dhigaysaa nin dukanaya wax alla wixii lagugu lacnadi lahayna waa ku sugan tahay salaadna waa dukanaya haye rabbi ha laga baqo subxaana watacaala waxaa sidaa lamida dumar baa dukanaya sansadaa u qaawan dhinaca u banaan mara salaadan dukanayaa bay leedahay haye sansada qofkay u qaawanaan karta ninka ayuu ahaa waa cagsi goonooyin bay ku dukadaan iyo garbasaaro saydaan nimankuna waxay ku dukadaan saraawiilulka soo xaadhayso khalaas iyo dhar waaweyn oo jirkooda waa qarinaya isaga haye marka cagsi bay noqotay war rabbi ha laga boqo subxaana watacaala qofka muslimka ee cibaadaysanaya waa ina u cibaadaysaa saw nabigu waxa loo cibaadaysa u yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh labiskaagii baad xidhatay waxaad xidhatay yani wasaqaadkii baad soo wanaajiday markaa ka gadaal baa lagaa doonaya inaad qibladii timaadi oo aad salaada dukatay waxaan joojin doonaa darsiga halkaa qiblada ayaanu ka bilaabi doonaa waqtiga soo socda salaada oman ibtidax u samaynayni waxaa marka idin xasuusinayaa kitaabka la yidhaha sifatu salaati nabi min atakbiir ila tasliim xidhashada salaada ilaa laga baxayo yani salaada oo nabiga sida u dukan jira ay ku sugan tahay ayaan doonaynaa haddii allah qadaro galabta sabtiga iyo galabta xadda inaan akrino mulakas isagoo ah min yani microfonka ah oon dadka u miisaalin oon tusnaa habka kayfiyadu ay tahay axadkii doonaya ha yimaado haye axadkii doonaya inuu ogaado waxuu nabigu akrin jiray habka uu samayn jiray iyo sida uu yeeli jiray ha yimaado ilaa dadka markaad aad u eegtid waxaad arkaysaa waxaa la dukanaya inaysan salaad ahayn hana ogaado qofka muslimka rasuulku inuu xadiid ku yidhi ina kula salaad la arka kulligeed wixii ka horeeyey oo khadii'o ahayd allahu yaxudu rabbi waa ku daadiyaa waa ku baabi'iyaa dambi kasta horteed la galay oo markay salaadu salaad tahay rasuulka xadiis sanadkadu sugaya muxuu ku yidhi xubiba ilaya min dunyaakum annisaau waddiin wa quratu cayni fi salaad buu yidhi adduunyadiina waxaan ugu jecelahay haweenka aan guursanayo guursigooda iyo diibka waxa la isku carfiyo ishaydu waxay ku raaxaysataa waa salaada buu yidhi salawaatu llahi wasalaamu caleyh waxaan ku raaxaystaa oo aan wax walba ilooba oo dhib ah salaada alla markaan dukanayo salaadii uu rasuulku sidaa ku cabiray raaxadii noloshiisa iyo caafimaadka bani aadamka haddaanan saan u dukanay aanan garanayn waa dhibaato masaajidkana la imaanayo waxaa dhibka uu yahay aad u weynan badan inaan masaajidka ka baxno saw nabigu sheegay salaadeenna toban markii loo dhigo ul kamid anagoo wadan oo wax aan ka wadana la arag ilaa dadka qaar ba saa uga baxaye marka ikhwaani axad walboo muslima waxaa waajibko inuu diinta barto waana inaad maskaxdiina u furtaan 3 arrimood arrinta ugu horaysaa waxa weeye kitaabka rabbi iyo sunnada nabiga barashadeeda maskaxdiina u fura maskaxdiina u diyaariya arrintaas ayada arrinta labaad waxa weeye ood maskaxdiina u diyaarinaysaan axad walbow ogow dunida waa laga tegaya oo qabri baa loo socdaa wax qabriga kugu anfacayana waxaa laga arkaa caqiida saxiixa iyo camal saalixa inaad maanta samaysatid wax kaloo qabriga kugu anfacaya ma jiraan ehel iyo awlaad iyo wax kasta waa laga tegaya maskaxdiina u fura
qofka garanaya qabri in labadaa looga baahan yahay diintana uu baran wanaagana waa ku dadaalay dhinacan u gaadida dhibaato ma hataa laakiin markaad ka soo kacayda waa side waa samica allahu liman xamida sidaa weyaan maxaa dadka ka sinayihin agsarkooda samica allahu liman xamida saas haye ma waxaa lagugu yihi orod roobdoon roobaa loo baahan yahay mase samica allahu liman xamida waxaa lagu yihi waa kelima roobdoon oo alla lagu baryo macnaheeda ma taqaana ilaahay waa aqbalaa qofka maadiya mahadiisa gacmahaasa goormaa saasa la yidhaha waa markii alla la baryayo haye xaggeed ka keenta gacmaha saasa samica allahu liman xamida kulli waa laga sala wada leeyahy ilaa wax yar mooyaane saasa war arrintaas waa mamnuuc mana ka sugna nabiga alle waana bidca ay dadku samaysteen yarfacu yadayhi xadwa mankibayhi sidaa sala allahu alayh wasalam haye saasaa nabiga ka sugan haddii marka lagugu yidhaahdo gacmaha maxaa halkan loogu celiyo maxaa loo laalaadiyey rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam marka aad rukuucda ka kacdid sidii aad aheed horay ugu laabo saad horay u aheed horay ugu laabo oo dirita isu taag marka dirita isu taagga qofkii ku fasiray inta aadan yani faatixada markaad akrinaysa sidaad aheed noqo gacmihi halkiiba ku celiyay axadka ku fasiray dirita isu taag waxaa loola jeeda si caadiya isu taagna gacmihii waa laalaadiyey soo garan maysid labada haboo meesha ku jira nooca weyaan miskuuladna ma lahan misalo lagu murmo ama laisku qabsado ama balaayo laga dhigo ma ahan laakin waxa balaayo ka taaganta waa saasa samica allahu liman xamida saaro leeyahay sujuudi waadaya marka ikhwaani rabbi ka cabsada saasa ma jirto meesha waxay leeyihiin gacmahaagu sidaa ha noqdeen faruhu sidaa ha u sinaadeen qibladana saa ha u gaabisanaadeen haddaan sidaa la yeelin salaadan meesha darajaad geysanaysaa salaada waa maskaxdaada maana waa inaad nabiga alla ku dayata salluu kamaa ra'aytumuni usalli saad aragteen anoo u dukanaya u dukada meelna ay u khilaafinina maxaa dadku sameeyaan faatixada marka la akrinayo iyo marka ducaa la gaaro iyo saasan wala daalintoo lama yidhahdo aamin saasan gacanta saasa laleeyahay meel ay ka tila laga garan saas adoo gacanta lagu saaran ay aaminta ku jiraysaa gacanta saasa laleeyahay oo lasoo fororinayay gacanta saasa laleeyahay iyo samica allahu liman xamida saasa loo leeyahay ala liman xamid tacaala saasa sidii gacanta inay oo ilahay ka baqa subxaana wa tacaala salaadiina wanaajiya waxa ma laydin sheego nabiga yidhi ma laydinku yidhi waxa aad ku jawaabay dad badan ay ku jawaabayaan waa maxay intaada sana soo dukanaya hadda salaadii aniga lay barin maana salaad lay barin haye salaadii aan lagu barine ma ka taqaanaa waxa salaada ka warramaya laba xadiis baa ka dhig waxaa ma ka taqaanaa salaad lagu bari maaye waa taqaanaa aniga da'daasaan kusoo culimo la soo joog ku gaaray haye da'daas gar la naqayo iyo si cunto loo cunayo si gabar loo doono waad garanaysa laakin si kitaab loo rogo loo akriyo miyaa taqaana waa maya markaasuu li da'daasaan kusoo gaaray ilahay naga xisoolo ama da' kale kusoo gaara baa kusoo gaaray xakiim binu xizaam marka waxbarato bilaabay 60 sano jiray 60 sano ayuu diin bilaabay 60 sano kaloo sii noolaayuu baranayay dhinacaan u batay oo waan jabooba diintaan iga geeyayo ma hoos fadhiisto kale niman aan ka waaweyna midna ma dhihin haye nin kasta oo aan diinta garanayna waa nin laga da'weyn yahay ha ogaado mar kasta haddaadan diinta garan caqligaaga waxbaa ka dhiman da'daada waxbaa ka dhiman saraftaada iyo qiimahaaga waxbaa ka dhiman waayo waxaad ogtaaba la aragba haddaadan diinta ilahay aqoonin diintaa markuu qofku yaqaano waxaan kala garan karaa hadduu caqli ilahay siiyo subxaana wa tacaala lakin haddaadan diin garin maxaa meesha ku haysaa maxaad haysaa kula tahay ummadda maxaa cadaab geeyo oo balaayo ku dhacday waa diin la-aan rabbi ha laga dabo subxaana wa tacaala markaas ka gadaan waxaa la aadaya waa sujuud ictidaalka waa lagu xasilaya samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shita min shay bacda iyo adkaar kaloo nabiga ka sugan sala allahu alay wasalam waxaan halkaa kasii wadi doonaa salaada qaybaheeda aan sii sheegno marka adkaarka ku soo aroortay yani ictidaalka isaga nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan inuu yihi rabbana walaka alxamdu xamdan dayiban kasiiran mubaarakan fiih xamdan dayiban mubaarakan fiih in lagu dari karayo rasuulku uu sheegay sala allahu alay wasalam waxaa nabiga ka sugan ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد في صحيح مسلم إلا إلى أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله يوم مد من حكرا مجرى واحد أروه بحلو مد بحكرا أنا مجرى واحد أروه جيده ترفضت أكتي ترفضت أكتي أكتي أروح هو تلميسه إلا إنه غفي إلى إيمان لي ماذا ميان وحكرا غفع كتلك أنا مرحان حقا تساويا صلاة دي وحي نوما ليس احتجاج waxaan noo dhamay sujuudda iyo wixii ka dambeeyey markaas ragcay noo dhamaatay iyo wixii la akrin lahaa haddii rabbi qadaro bacda salaat alcasr ayaan taa ku dari doonaa waxaan ka jawaabaya dhowr su-aal hadda waxaan imarka idin xasuusinayaa axad walbo muslimow ogow waajib bay kugu tahay baratada salaada wax alla wixii salaadaa kamid a oo kaa qaldan dadkaad u malaynaysa inay garanayaan u tag midda kale salaadu daliil bay u baahan tahay waxaad rabbi ku caabudaysa oo weliba salaada waa inaad daliil haysataa taasaa lagaa doonaya waa lagama maarmaan marka rabbi hadduu qadaro qaybta kale waqtigaasaan dhamaystiri doonaa wabillahi tawfiiq naam bismi illaahi raxmaani raxiim su-aasha lagu soo weydiiyey waxay tahay nin aan salaad tukan gabar ma meherin karaa wilaayadeedana ma qaadi karaa axay aan salaad dukan waxba ma mehri karo waxbana wilaaye ma qaadin karayo qof aan salaada dukan
caqad ma ridi karo maxaa yeelay caqadka qofka ridaya waa inuu qof muslima yahay haddii inanta la mahrinaya ay muslimad musalliyada taana wilaayo uma qaadi karo walan yajcala allahu cala alkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay dadka mu'miniinta dadka aan diinta lahayn dushooda dariiq uma uusan yeelin maxaa gaal looga cabiraya rasuulka allah gaal ka cabiray sala allahu alayh wasalam axadka aan dukan wax uu mas-uul yahay ma jiraan wax uu wilaayo qaadi karana ma lahan wax uu qaba karana ma lahan wax uu yahay ma lahan maanta haddii 300 oo qofoodan dukanay nagu dhaan bishii ramadaanka aragnay in laga rumaystaa ma banaana ma laga yeelayo waa 300 aan dukan maxaa yeelay shaqada kuma lahan diinta wax kastoo sheegaan ma laga yeelayo liajli haada axadka muslimka waxaa waajibku haddii islaamnimadu run kasta inuu diintan qaato dadka aan salaada dukan oo dad khayr lama ahan muslimiinta ku tirsi ma ahan yaan la soo dhawaynin yaan janaase lagu dukanin yaan qubuurta muslimiinta lagu aasin yaan gabar muslimadaan aan la siinin oo dukata yaan la siinin nin aan dukan ninka intaa mid kamida sameeyana daliilka uu ku yeelaa laga doonaya waa waxa uu ku yeelaa laga doonaya waayo rasuulka alle maxuu yidhi bayna arajuli wa bayna ashirki tarku salaa sida ku sugan ibnu maaja iyo tirmidi iyo keyrkii qofka iyo gaalnimada salaad ka tegiddaa udhaxaysa waana uu ka tegay salaada midda kale alla waxau yidhi fain taabuu wa aqaamu salaata wa aatawu zakaa fa ikhwaanukum fi ddiin markay dadku shirkiga ka tagaan ay salaad la yimaadeen aysa ka bixiyaan bay diinka walaal idinkula yihiin war nin salaada dukadiida diinta walaalka ugulama ahan waxbana kalama dhexeeyaan maxaa lagu soo dhawaynaya yaan lagu qasbin gabdhaha yaana lagu qasbin nin dukada gabadhiisa hadday dukan weyno u yidhaha waa kala tegayna iska hay hadda saa la yeelaa waa tolkiiy tolnimo laguma wada joogi karo oo tolku berita qabrigaaga ma seexanayaan ee rabbigaa qof walba ka cabso midda kale alla qur-aanka waxau ku yidhi dadka muslimiinta markuu ka hadlayay wa idaa qiila lahum rukacuu laa yarkacuun alla u dukada marka laga yidhaha alla uma dukadaan ma rukucaan ma sujuudaan allana ma caabudaan subxaana watacaala waa waxa keliya oo wax lagu kala fasliyo midda kale xadiis saxiixa nabigu waxau ku yidhi ma garanaysaa naarta marka laga sheekeynayo taakulu ibnu aadam annaar ibnu aadamka naartu jirkiisa way cuntaa ilaa athara sujuud sujuudda raadkeeda mooyaane oo maxalka laga sujuuda wejiga ah وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود إلهي واقع حرم النار إلي سجود رياض كذا عنتبه بلي صلى الله عليه وسلم مركا ملائكة النار الله دينا ذاك النار لغا صوتها وحي كوكرتن سجود أحد كان علامة سجود الله النار كان لغا صوتها لما نيكانو لغا مرقرت ذاك كذا تاس نبي حديث صحيح كويري أي وقالك صحيح كو قرية قرني محاجم قرية ما حد جوابي دونتا والله حرم النار إلي عنت ماجد السجود أحد كان صلاة كم مغني وقف غير لمان اسكدر جيا قوية إيه منها أسود رحيم سابو الله بالبلاد marka dhibaata ku dhacdo cunto u baahdo cuntada waa loogu qaban karaa afka sida ay muslimiintu sheegaan ninka haddii uu ku tukado dharka naagtiisa diinta maxay ka qabtaa mushkilad ma lahan inuu ninku aqalka u joogo aqalkiisa kula dukado salaantiisa marada ay qabto waayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam yani dumarkiisa uu lahud ayuu ku dukan jiray waxayna caaisha sheegayaan iyo yani sawda iyo mara ay dariibka weyn nabigu inuu dariibka xirta ku dukan jiray sallallahu alayhi wasallam xadiis baa jira oranaya luxufka iyo shucurka maryaha la xiriira nabigu kuma dukan jirin waa Abu Daawud qorayo isla markaa haddana waxaa laga jawaabaya isla markaa nabigu haddana ku dukaday marka la leeyahay nabigu kuma dukan waa marka looga baqanayo nijaasa haddaan nijaasa looga baqanin mushkilo kuma sugna islaantiisa marada la huday ninku oo kula jiibsaday iyo go iyadu huwato iyo go labadooda wada wadaan inuu ku dukado dhibaato ma lahan rasuulkuna wuu sameeyey dhiig baa inta gaaro iska soo dhago ku dukaday nabigu sallallahu alayhi wasallam laakiin waxaa lagu ogolay inaad labis ka dhigatid maryihii dumarka loogu talagalay oo aad tirada waan soo labisanayaa hadda waxaan ku aadaya amaakintaasoo waa kida rasuulku aqalkiisa markuu joogo maryaha caasha uu qabi jiray sallallahu alayhi wasallam wax dhibaato ma lahan mushkilo kuma sugna in lagu dukado haddaan nijaasa aysan lahayn nacam nin ayaan isguursanay oo waa laygu qasbay anigana haddii aan ka tago ninkaasi diintu maxay ka tiri inantaa ninka lagu qasbay iyadu diidan tahay mahar ma qabanayo waxa qasab la yidhaha gabar mahar kuma qabto sideeda aan marka inan la guursanayo waxaa shardi ah inay iyadu raalli noqoto midda labaadna dadkii wilaayada lahay waa inay bixiyaan dadkii wilaayada lahay hadday ka reebtoonaan cuduraan nacam waa mawduuc gaara haddana labadaas aysan jirin rasuulku maxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam markuu ka sheekaynayey yani gabdhaha markuu ka hadlayey tayibadu waxau yidhi tucribu binafsiha nafsadeeda ayadaa caddayso afkay ku caddayda in la mahriyo walbikruna idnuha sukuutuha gabadha bikaaradaana waa in la weydiiyaa waa in lala hadlaa hadday xisooto yaro aamusto waa la mahri karayaa haddii laga helo calaamooyinkii muujinayey inay raali tahay waa xadiis saxiixa ku sugan riwaayo kale waxay ku yidhi aamiru nisaa fi abcaadihina dumarka budcigooda kala jawra bal weydiiya inay ninkaan raalli uga tahay in kale waxyaalaha inay raallitaa lagu garto waa inay qosasho oy qosol iyo xisood isku darto iyo inay sii jeesato laakiin hadday oydo fuqahadu waxay leeyihin lama mahri karo maxaa yeele ninka ma rabto
soo garamaysid ama haddii qosol iyo xoogaa guriga hoose waxaa laga maqlayo wahaakada waxay leeyihiin waa gabar yar baa la mahrinaya fogacadu soo garamaysaan hadday ku caddaato inay ninka diidantaana lama mahrin karo waa inay inantu ninka raalli ku tahay qof walba arrintaa garto gabdhaha lama qasbi karayo marka inanta ninka qasta maharka loogu riday afkeeda haddii halal ka soo baxay oo waalidku ku yidhahdeen maantay waa ku inkaaraynaa ninka naga yeel oy ayadu ogolaatay qalbiga waa ka nacda hadday doontay sidaa lagu mahriyey duxadii waalidka ha qaato ninka iyo ka tegin hadalkeeda aan lagu mahriyey mana diidi karto markaas ayada waa laygu qasba ma taala meesha anigu niyaddaan ka nacbaa ma taalo laakiin waad hadli diiday waa diiday mar labadii soo taagtay qasabba inta lagugu mahriyaa la yidhi jiido mayada kaa xoog badan adna xagga ku dhaqa waxba kuma jiida kare oo haddaad iska dhici karta ninka hoosaas wabillahi tawfiiq nacam wiil iyo gabar islaam ah ayaa isguursaday muddo kadibna gabadhii ayaa xijaabkii iska dhigtay oo tuurtay wiilkiina waxa uu leeyahay gabadhii waan jeclahay oo waan u baahanahay diintu maxay ka qabtaa islaamta hadday xijaabka dhigto waajib waxaa in xijaabka loo sheego sidii ilaahay oo qur-aankiisa uu ku yidhi quu anfusakum waahliikum naara naarta ka badbaadiye naftiina iyo dadkiina ninka waxaa waajibka inuu islaamta xijaabka u sheego hadday xijaabka qaada diiddo oy dib ugu laaba diiddo waanada ay aqbali weyso waajib ayay ku tahay islaamta inuu ka beri noqdo ninkaas maxaa yeele waxau noqonayaa dayuus haweentiisii ay qaawanaan ku hoos joogto oo sidaa ku haysta dayuusnimadana waatan soo ogaana xaaladeeda nin kasta oo naagtiisa qaawanaan ku haysta oo diinta ilaahay inta ka dhaadhiciyey ka dhaadhici diiday ama inta ka dhaadhiciyey ay qaada kari diiday oo ay diiday iska soo taagtay ninkaasi dayuus buu noqonaya u sheeg qofka intaa wax uga sheegay sida wax ka ogaanayo nacam waxyaalaha loogu dulqaataa u dulqaado maanta waa in berri caano saa dama bari saa si ka soo mar way isisla taagta qofkii haddaad sidaa ku qabtid oo aad tidhaa ilma ayaa meesha jooga oo iya ogaaw inaad dayuus tahay ahadka dayuuskan inuusan jannada alle meel ku lahayn siduu rasuulku sheegay sala alla alay wasalam marka inanta hadday xijaabka dhigto waa in xijaabka dib loogu celiyaa haddii ay ku laaban weysana ayada iyo ninku waa inay ku kala socdaan shareecadu barya ma lahan waxa qofka alla ku waajibiyey waa in loo sheegaa oo ku socdaa hadduu qaadan waayana waa in lagu kala tagaa ma ahan waxyaalaha la isugu dulqaadan ma kari maa jira gabadha waxaa laga reebi waaye nimanka ajaanibtaa inay mukhaalado ku samaydo waxaa laga reebi waaye safar xaaraana inay gasho waxaa laga reebi waaye inay qaawanaan suuqa ku marto waxaa laga reebi waaye ninkay doonto inay gacanteeda ku salaanto waxaa laga reebi waaye meel kasta oo muusig lagu cayaarayo o laga dheelayo fisi ka jiro inay tagto inanta intaa laga reebi waaye haween la haysan kara maahan mana aha naagma noqone ninka sidaa ku haysaa asigan diin meesha ku haynin rabbi ha laga bogo subxaana watacaala sideeda dhanna ninka muslimka oo diinta ilaahay ay ka run tahay in mahar u qabtaaba waa mamnuuc gabar caariyada oo qaawan hadduu diin lahaalahayo maanta horeba ma maharsan karaba gabar caariyaha oo caddaysina mid hawna layla moodo see maharka ugu qaban karaya midar kale dhulka soo jiidaya la helaya ma dhici karto haye waa caddaysin halkaasay rabta caddaysina waag tahay markaasuu ku leey hadda waa in adeertay maya hooyadeeda igu ducaysay hooya waxaasay kugu ducaysa miya haye rabbi ka baq subxaana watacaala axad walbu rabbigaa ka xisho ninkay haweenta nula caawiyo qofku waa inuu diinta alla ogol yahay waa inuu diinta alla ku socdaa waa qaldami karaa qaladka waa inuu ka laabtaa bani aadam waa qadaa khayru qadaa'ina tawaabun u cudurdaar waa u sheeg waxaa tia rabbigaa ka cabso qofka waani wahaakada arrintii waa isbedeli weyda soo kalaas oo dhamaatay waxaa meesha ma yaalin naam qof hadduu dhinto isaga oo janaabo qaba imisa jeer ayaa la dhaqayaa qofkaas wax isbedela oo janaabadu keenaysa qofku qaba ma lahan waxaa la dhaqayaa dhaqidii caadiga aheed oo la dhaqi lahaa qofka maydka oo dhintay qofka maydka oo dhintay 3 baa la dhaqaa 5 ilaa 9 yani intii mayd la dhaqi jira on baa la dhaqayaa laakin waxa la leeyahay janaabo qabe janaabadii ha laga dhaqo marka hore kabacdi sida alla yeelo wax daliil oo arrinta ka waramaya ma jiraan waxaa jira nin yani saxaabada kamid oo shahiid ah oo la yidhi malaa'ig baa dhaqday islaantiisa marka la weydiiyena la yidhi janaabo qabay taamay qofkaana waa dhintay takaaliifta isaga dul saareeda waa ka dhacday dadka muslimiinta ayaa lagu leeyahay inay dhaqaan oy u dhaqaan janaaso ahaan bis waxaana la dhaqayaa dhaqidii mayd la dhaqi jiray sida nusuusta ay caddeynaysa wax kaloo dhaqayaa ma jiraan naam waxaad nooga sheegtaa haddii ay gabadhu xayd qabto ma fadhiisan kartaa masaajidka qayb qolka ka mid ah mase jirtaa meel cayiman oo ay masaajidka ugu ekaan karto inanta muslimada oo xaydada masaajidka loogu ogola masalada hore ayaa lagu hadalnay yani ma loo baahna inay masaajidka soo dhex fadhiisato waxaa jira qowl odhanaya haddaysan masaajidka dhibaato u geysanaynin oo aan dhiigu gaaraynin asi duruuf jirto waxyaala noocaasa laakin masaajidka looma ogola ama madaarista meelaha wax lagu dhigto iyo amaakinta masaajidka ka baxsan oo masaajidka yani darfihiisa kale ah oo aan masaajidka meeshii loogu talagelay dukashada aan ahayn way fadhiisan kartaa masaajidka waxaa laga yaaba inuu 2 qaybood yahay qayb hore iyo qayb dambe qaybta hore iyo qaybta dambe masaajidka waa isla mid kaliya meelaha madaarista loogu talagalo waxbarasho loogu talagalay ama loogu talagalay in dadka lagu wacdiyo daaca la isugu taga ah iyo amaakinta noocaasa inanta waa fadhiisan kartaa ama baytka ilaahay
hadalkii ku jiray ayaa ku jira muslimiintuna in badan waxay u daliishanayaan sida loogu diiday inay kacbada ku dawaafto ayaa makaanka masjidka loogu diiday inta muslimada ayadoo xaayda inay soo gasho waxyaalaha marmar baa waxaa la yidhaha waxaa jirta daruuro ah daruurada mawduuc gaara weeyaan waxyaalaha daruurada laga dhiga waxaa kamid a waxaa la yidhaha qofkii meelo wax ka barta ma helayo hal maalin keliya ayaa diinta la sheegaa halka maalinna masjidka lagu sheegaa meel kale xarafka diina ka dhagaysta ma helayo halkii maalin iyadoo dhiig qabtay kusoo beegantay maxaa la samaynaya warar noocaasa culamada qaar ayaa wax ka sheegay duruuf noocaas ama qofkii meel uu ku yani meel uu fariisan karo waayo oo dhiba naftiisa u baqanaya ama waxa weeyaan roob ha ka baqan ama dhib kale ha ka cabsaday meel uu galo kalama ma haysto arrimaha waxa weeyaan waxyaalaha daruurada mawduuc gaara weeyaan fuqahada qaar baana halkaa warar ka sheegta laakiin waxay arrintu tahay inanta muslimadda waxaa looga digayaa masaajidka ilahay inay soo gasho iyadoo xaayda allahuma hadday muruurta ay gudbayso mawduuc weeyaan ama isay ka qaadayso waayo rasuulku markuu caaisha ku yidhi iisoo dhiib sujaayadda waxaa riwaayadaha qaar laga fahmaya in masaajidka laga soo dhex qabanayay oy gacanteeda gelisay oy ka soo qaaday ama lacalla qayb kamida waa ay marta masaajidka taas ayaa laga fahmaya marka taa dhibaato ma lahan laakiin hablaha muslimaadka ha iska ilaaliyeen madaarista iyo meelaha wax lagu barto ha fadhiisteen nacam ama haayo ama markaa laalaayo ama dhaba yani ku eli xabadkaaga laakiin si diritaan waa inaad isu taagtaa buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh adigoo weli xoogaa foorar kugu jiro haddaad tidhahdo waxaan aadayaa sujuudda oo aad tidhahdo ictidaalka intaas aya uga lagama yeelayo salaada rasuulkuna aad ba uga digay dadka markay rukuucda ka kacaan aan dhabarka si fiican u toosin iyo dadka marka ay sujuudda ka fadhiisanayaan aan taani u fadhiisan salaad inaysan lahayn ayuu u sheegay sala allahu alayh wasalam waxaa laga doonayaa dadka muslimiinta inay iska ilaaliyaan kolka degdega faraha badan ee salaada lagu samaynayo oo weliba ay ugu daran tahay ictidaalka iyo waxyaalaha lamidka ah marka rukuucda laga kaco axadka isagoon weli kor aadin ayuu allah akbar leeya hoos buu aadaya arrintaa laga fiirsado axad walba u si aada isu taag askari digtoono marka la yidhahdo sa u liqmaanaya waa gaila mase la yidhah maana saasoo maanta dhan ahaanaya rabulciisa subxaana watacaala hadduu ku yidhaha daqiiqad ii taagin oo ma yeeli kartid dhabarkaaba lagaa garaacaba meeshaas hadduu kii ku talinayo maraysa laakin saas adu liqmeen maanta dhan ka fiirsada arrinta ayada ah bani aadamku markay bani aadamka ixtiraamayaan siday isugu taagaan iyo sida laysu liqo hade waa kaa inta lasoo xirto dar balaaya ka dhacdo aad moodi inaan tixilo korkaaga kudayi karin bani aadam waa laga sarrayna markaa laakiin rabbi ma loo dukanaya dharka kan ugu xunna waa la xihan marka la dukanaya dhaadhaansideeda oma laska siinaya war rabbi a laga bogo subxaana watacaala xafiiska marka loo shaqa tegayo kabaha waa la taagin sarwaalka iyo shaatiga waa la taagin balaayo on baa la iska dhigo ninka waxaad moodaa inuu jinayo xoog la soo baxayo salaada markuu dukanayo miskiin baa la moodaa siba iska dhigi waxaad moodaa inuu aad u dulaysan yahay rabbi a laga bogo subxaana watacaala rasuulka markaa ka gadaal wuxuu ahaan jiray inuu aaday sujuuda kaana sala allahu alayh wasalam yukabiru wayahwi saajida allahu akbar ayuu odhanayay sujuudda ayuuna u hoobanayay sala allahu alayh wasalam sida uu caddaynaya xadiid axmed iyo dabaraani ay sanad saxiixa ku qoreen sujuudda ayuu u hoobanaya isagoo allahu akbar odhanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninkii salaadiisa xumeeyey nabigu waxau ku yidhi uma asjud xataa tadma'ina mafaasila axadku waa inuu sujuudaa ilaa mafaasishiisu ka xasilaan xibnihiisa xibin walba ay gooskeeda qabsato xadiis bukhaari iyo muslim ku sugan baa kusoo arooray rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau ahaa idaa araada an yasjuda kabbara wayujaafi yadayhi can janbayhi uma yasjud markau doonayo inuu sujuudo allahu akbar ayuu odhanayay labadiisa xusulna dhinacyada waa ka durjinayay waa sujuudaya markaa sala allahu alayh wasalam marka uu wejiga dhulka dhigayo ama uu sujuudaba labadiisa xusul dhinacyada wuu ka durjinayay sala allahu alayh wasalam waan ogaan doonaa habka looga durjinayo sida uu yaallo xadiidka macnaha tusinaya abu yacla ayaa musnadkiisa ku qoray isagoo saxiixa awqaadaha qaarkood nabigu markuu sujuudda u socdo allahu akbar ayuu dhahaya gacmaha ayuu kor u qaadayay sida macruufka ah marka salaada la dukanayo waxaa gacmaha kor loo qaadaa marka la xirinayo iyadoo garbaha la qaabilinayo iyo kolka rukuucda loo socdo iyo kolka rukuucda laga kacayo saddexdaba axaadiis saxiixa ku soo aroortay waxaa sidaas oo kale xadiis saxiixa ku soo aroora marka laga kacayo ataxiyaadka dhexe afartaa jeerna waa joogta waa marka la xiranayo marka rukuucda la aadayo iyo marka rukuucda laga kacayo samca loo laleeyahay garbaha lagoo qaabilinaya gacmahaasaan soo tilmaanay ataxiyaadka dhexe marka inta la sameeyo laga kacana waa sidaas oo kale waxaa jirta awqaado nabigu uu marmar sameeyey oo uusan daa'iman samayn jirin waxaa kamid a marka uu sujuudda aadayo samica allahu liman xamido kolka inta yidhaah u dhamaysto ee uu sujuudda aadayo fii bacdi alawqaat allahu akbar buu oranayo waa sujuudayay sala allahu alayh wasalam yarfacu yadayhi axyaanan idaa sajada waxaa soo saaray nasaa-i iyo daaruqudni waa xadiis sanadkiisu sugan yahay waa axyaanan marmar baa laga hayaa nabiga isagoo sujuudda u socda inuu yidhahdo allahu akbar allahu akbar saasoo gacmaa kor ugu qaada markaabuu sujuudaya allahu akbar inta yidhahdo waa axyaanan marka lagu leeyahay waxaa laga wadaa marmar
markasta ma noqon karto waa awqaadaha qaarkood aad bay u yar tahay rasuulka sala allahu alayh wasalam marka uu sujuudda u haabanayo waxa uu ku bilaabi jiray dhulka waa maxay xibnaha marka sujuudda la aadayo alquruuru ila sujuud maxaa dhulka lagu bilaabayay gacmihiisa ayuu rasuulku ku bilaabi jiray sala allahu alayh wasalam wa kaana yabdacu yadayhi cala alardi qabla rukbatayh rasuulku waxau ahaan jiray inuu gacmaha dhulka ku dejiyo inta uusan jilbaha dejin horteed sidaana waxaa tilmaamaya xadiid ibnu khusayme iyo daaruqudna ay soo saareen xaakim uu saxiix oo dahabi ku waafaqay gacmaha ayuu dhulka ku bilaabaya marka uu sujuudayo sala allahu alayh wasalam jilbaha hortood waxaa soo aroortay nusuus sheegaysa in jilbaha dhulka lagu bilaabo laakiin waxaa markasta la rajaxaya axaadiistana ay u awood badan tahay sixadooduna aad u wanaagsan tahay qofku inuu gacmihiisa dhulka ku bilaabo markuu sujuudayo gacmihiisa inuu dhulka ku bilaabo markuu sujuudayo sidaas ayaana nabiga ka sugay sala allahu alayh wasalam rasuulka sala allahu alayh wasalam waxa uu amray marka la sujuudayo in gacmaha dhulka lagu bilaabo waxa uu rasuulku odhanaya idaa sajada axadukum falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir waliyabdac yadayhi qabla rukbatayhi axadkiin marka uu sujuudayo sida neefka geela u fadhiistayo u fadhiisanin gacmihiisa dhulka ha ku bilaabo jilbaha hortood ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam gacmaha dhulka ku bilaw jilbaha hortood marka sida geel u fadhiista ha u fadhiisanin oo geelu markau fadhiisanayo jilbaha u dhulka ku bilaabo adigu jilbaha dhulka ha ku bilaabay xadiiska haddii sidaa loo daayo culamada qaar taqliidii waxbay sheegayaan waxay leeyihiin jilbaha bani aadamku waxa weeyaan oo laleeyahay ha u fadhiisanina sida geela waxaa lagu jiidaya inuu jilbaha dhulka ku bilaawayo sida geela oo yaal oo kale marka qadiyadaha qaarkood ma ku jiraan meesha xadiidka macnaha loola jeedaa waxa weeye sida geelu u fadhiista ha u fadhiisanino geelu jiribka dhulka dhigaa adinku ha dhiginina ee gacmaha dhulka dhiga marka culimada qaar baa waxay odhanayaan nafka geela marka u fadhiisanaya qaarkooda dhulka ku bilaaba jilbaha adiga qaarkaada hore waa gacmaha dhulka dhigi ee jilbaha dhulka dhig saasaa loola jeeda leya xadiidka arrinta ayadaana xadiidka qaybtiisa dhamaa diidaysa gacmaha ku bilow intaadan jilbaha bilaabin buu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam sidaas ayaa nabiga ka sugan waa inaad gacmaha dhulka ku bilowdaa intaadan jilbaha dhulka ku bilaabin abu daawuud iyo kayrka ayaa xadiidkaas qoray waxaana xadiidka kusoo aroortay duruqaada wanaagsan culimadu aad bay usugayaan gacmaha dhulka ku bilow haddaad uwad u leedahay haddaad jilbaha dhulka ku bilowdo salaadaada waa ansaxaydaa axaadiis baa kusoo aroortay sixadeedaba waxaa ku jireen laakiin marka labada mas'alo la muqaaranayo waxaa la rajaxayaa nusuustuna u awood badantay in gacmaha dhulka lagu bilaabo labada masalona waa laba masalo jirta in gacmaha iyo jilbaha labadaba dhulka lagu bilaabay ama xagga la rajaxaya ayaa nooca ah rasuulku wuxuu ahaa inuu ku qawlo sala allahu alayh wasalam ina alyadayni tasjudaani kamaa yasjudu lwajhu labada gacmood way sujuudaan sida wejigu u sujuudo oo kale faidaa wadaca axadukum wajha faliyadac yadayhi waidaa rafaca faliyarfachumaa axadkiin markuu wejiga dhigayo gacmaha dhulka ha dhigo markau wejiga kor usoo qaadana gacmaha kor ha usoo qaado ayuu yihi sala allahu alayh wasalam gacmuhu waa sujuudaan sida wejigu u sujuudoo kale dhulka ha loo dhigo ayuu odhanaya sala allahu alayh wasalam xadiidka ibnu khusayme iyo axmed ayaa soo saaray xaakim baa saxiix yeelo dahabi baa ku waafaqay rasuulka sala allahu alayh wasalam marka uu sujuudayo kaana yactamidu calaa kafayhi labada kaf ayuu cuskan jiray kafka gacanta intaas baa la yidhaha dhulka ayuu sidaa inta udhigo u cuskan jiray sala allahu alayh wasalam waxaa lagugu sii darayaa wayabsuduhumaa faraha waa fidinaya nabigu wayadumu asaabixahumaa labadiisa gacmood farahooda waa isu dumayey sala allahu alayh wasalam wayuwajihumaa qibala alqibla xagga qiblada ayuuna sidaa ugu jeedinayay sala allahu alayh wasalam marka uu sujuudayo nabigu calaacalihiisa dhulka sidaa ugu qabanayay faruhu sidaas marka la rukuucayo faraha waa la kala geynaya saan soo marnay sujuudda sidaasaa faraha laga dhigaya waa la fidinayaa xagga qibladana waa loo jeedinaya sidau nabigu ahaan jiray sala allahu alayh wasalam bayhaqi ayaa sanad saxiixa ku qoraya ibnu abi shayba intaba ay rasuulka sidaas ayuu yeeli jiray sala allahu alayh wasalam rasuulka wa kaana yajcalumaa xadwa mankibayn marka uu sujuudayo gacmaha waxu dhigaya meelo garbihiisa ku beegan marka gacmaha markaad sujuudaysa waa inay hortaaga yaalin taas ayaa la doonaya waxa lagu diidaya waa sida in badan dadku u sujuudaan sujuud halkan sujuud hadda lay tuseen dadka iska qaad aamada dhig oo kiyaa dhulka gacmaha aagasin qiblada usii jeedi sida qiblada loogu jeediyo sujuuddu sidaa weeyaan ninka aad u eega waxau ku sujuudayaa gacmuhu ay yaalin cirbahaaga isku dhaji cirbihiisu may haystaan farihiisu dhulka ma yaalin si fiican u eega haye gacmahaaga qiblada si fiican u qaabili suulkaaga u dul faraha you ka fogaanin khalaas labadaada dhinac ka dursi dhinacyo yani dhinaca khalaas sujuudu sidaa weeyaan waxbaa ka dhiman weli allah qaybta kalaan ku dari doona ka soo qamaysa rasuulka sala allahu alayh wasalam
يجعل ما حد ومن كبير لما يسجل قابل كذا يوقع يلي حديث كان وحى صوصر أبو داود يتمري أحيانا حدوى أذنيه أو قالها داركوت مركا السجود يجعموه وحي كبرنا يندقها ومعناه واحد ولد يجعموه هالكاسي هلا أيوه واحد دقيقة أنت وضحي لمرحة ووجه سجوده صلى الله عليه وسلم رسولك وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض وجه مع السنك وإسوته يودلك سلا وغلسيني هذا سنك ودلك غلس الأدمري سنك ودو سنوك غلن سنك يوجه وإسوته ودلك كغلني صلوات الله وسلام عليه وسنك يوجه وإسوته أي رسولك سلا سميني حديث أبو داود يتلمذ سنة صحيحة يكوغرين رسولك صلى الله عليه وسلم مركا لسجوده أمر بوكب إيا قعمها إيا وجهها إيا جلبها إيا لبدا مقود فرحوله صدورها من أبنك الستة وإلى الواقبة فيه ربي بقى أي أمر إنا كسجوده أيوه إذا كسفلا صحيحة يسونا كإنتباه صدورها من أبنك كسجوده وجهها يسنك وإسواتها ويكوحي منها لبدا قعمات لبدا الجلبات إيا لبدا مقود فرحوله أبنك الثاني الواقبة فيه داد بالله يا فرحه الله ولينا سجوده dad baa laga yaabaa inay gacmahooda markay sujuudaya faruusaha yihiin dad baan sankooda dhulka dhigin axadka aan sankiisa dhulka taaban sida aan dhafoorkiisa dhulka u taabanay rasuulku waxau yidhi laa salaata lah wax salaad la yidhaha ma lahan salaadba ma lahan buu odhanaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maxay kula tahay marka salaadba ma lahan buu rasuulku yidhi xadiidka macnaha tusiyey daaruqudni iyo dabaraani baa soo saarateen saxiixa salaadba ma lahan sida dhafoorkaaga aad dhulka uga dhawtaa dad sankaaga dhulka uga dhawrto markaad sujuudaysid salaadba meesha kuma taalo todobada xibnood waa in laga sujuudaa sujuudana waa in lagu xasilaa axadku marka uu sujuudayo oo sujuudda usoo habanaya gacmaha dhulkaa ku bilaabo gacmahaaga faruhu waa inay sidaa u sinaadaan qiblada la daabitanaadaan sidaa ay isku ahaadaan haye sida aygo xagga qiblada daabita sujuud labadaaba dhinacna ka durji kirkirahaaga taasaa la doonaya waa haddaadan safku safadal ku jirto dadka xusila kala gaarin haye waxyaalaha sujuudda ku mamnuuca waa maxe gacmaha in la dhigo lugaha hoostooda amase in la yani halkaan lagu qabsado sujuud sujuudda mamnuuca gacmaha jilbaha hoostooda waa mamnuuc dhinaca kalena halka u qabo taasna sababta halkaa tagi sankaana dhulka dhig halka eego sujuuddaa sujuud maaha iyo faraha la laabayo gadaal loo sii jeedinayo bal sujuuddaas aan u badanay si fiican u eega sujuudda noocaasa sujuud maahan gacmuhu meesha yaalin bay gacmaha waxay la siran yihiin jilbaha waa mamnuuc gacmuhu waa inay hore usoo baxsan yihiin gacmuhu inay hoostaba ku jiraanna waa mamnuuc sidaas oo kale gacmuhu waa inay hortaada yaaliin hortaada inay yaaliin baa la doonaya waxaa kale oo mamnuuc aan la ogolayn waa maxay in la iskala bixiyo sidii neef yani geedka loo الصلوات الطيبات لله أما التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهكذا التحيات عند الشكر ورسول سلام ثم جدال الله حسيب وحكوحي وامح صلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وهو أمدي سأجد إلينا صلى الله عليه وسلم كيفية ينبغى بأن نبقى تستفاد كيفية الله رأي ساق هذا لنا بلارك اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم أتجا نفسي ساعة جري تذكر ذات أسير جري وكيفية على محمد مكة الإله وعلى أهل بيته بالليل وأزواجه وعلى أزواجه وذريته هو أنت سيئلني كما صليت على آل إبراهيم سأدون عليه ستنبي ولا بدكتيسة إنك حميد مجيد وهل بدلك وبارك على محمد وعلى آل بيته هذا آل كنبيك وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد تسوى كيفية نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى كيفية نوحى سفري أحمد أو مسرد تستفقر إيا الدعاوة السنة الصحيحة كيفك وكسر لما أجر أولو لقيته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم وكيه أمه ودوية لكن محاول قرابي وعلى أزواجي بقى قرابي وذريتي بقى قرابي وعلى آل بيتي بقى قرابي وعلى قد بدل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قردن آل بيتي اللي لقى مدين آل كان قردن معليش يقوم يصير كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تاسوي معنا حديث كأسنة أو صحيحة وحقر البخاري يا مسلم يا حميدي بروك يرسو وكيفيوني كنبي الله صليه مش الله مش دون تبقى تصلي نيسان وحكى رسولنا النبي إلو يريد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ماشي وعلى آل إبراهيم لها أي وآل إبراهيم كلمة ليه انت روى الكلام إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
وكيف كان النبي كسبا وحضر أحمد يا نساء يا أبو يحيى يا كتب سبق قرية هذا رسول الله الآخر وحكى رسولك كسبا اللهم صل على محمد عبدك والرسول رسولك إلى أن حريصه رسولك صلى الله عليه وسلم كيف يوين قصى الله صلى وخيبة بدن وآدي سقود دو هل حرف يقول كلمة قليل وحكى سيد بخاري هي مسلم أبو داود ترمذي نسائي كتب ذاك الدونة مسند الإمام أحمد كتب الدوران الكريه ملاك الدونة كل ولا نساء قيبها أردن أيضا واحد مسؤول ولا أي سنجرين واحد لو لين ملء كلمة لين أنت تصلي كديق الهاد وغصب الفاضل ولا إيمان الله ربي على ربك سبحانه وتعالى صلي مركب وامين واسلام صلي قيده أردن هل مس وكمل الله ما هيو وعلى سيدنا كجرته اللهم صل على سيدنا هل من قول كجرته الله ما هيو قيبها صلي أردن رسع سلا يلا هاو قال لي رسولك لو سيد عين رسولك هو سيد أنا سيد ولد آدم ولا فقر حديث صحيح كويس آدم علمه سيد بانوها يفهم إيمان أمبو نبي كويس وحديث صحيحة هذا النبي سيدنا وأوقع سنجين بما يسكت لكن صلق النبي كمجر اللفظ لإلى سيدنا لفظ سيدنا لإلى صلق كمجره منك كسر دراكم أوصل صلي النبي مسلمين تويدي ما حديث انتو ده هل لفظين الله يلقوا نقلينه على سيدنا marka amaantiisa ka sheekaynayso sayidina maxamed wa ala sayidina maxamed iskada marka amaantiisa ka sheekaynayso ila rasuulku waa sayid waana yahay waana inaad u aqoonsan tahay laakiin ma saliga kuma jirto maxaa loogu dari waaye haddaad adigu ku darto asagoo rasuulku ku darin ogaagoo rasuulka jahli baad ku xakunta adina cilmi baad isku xakunta nin wax yaqaan oo fiican aa tahay rasuulka maxaa meesha ku haynin haye ka fiirso arrinta ayada saliga nabiga keefiyada aan akrinay iyo qaybaha u dhoweeyaan intaa ha lagu gaabsado أحد والبوك كفلا وربك كبر سبحانه وتعالى صلقوا مركوا فونا ما لك قدال يا تحياتك رقعدي سدحادي رقعدي أفرادي وحسن ستاقي دونتا أدوان سؤال أن سيدا اللوز كان هي الصلاة رقع أول بسيدا لقي يلي وحي الصلاة كل قدوا يسكنوا وحرق هذا هرعي ودار سيوان حرسل الصلاة الحرانية مركا كوكودا بيسا وحيالها ماشا كجرا وحوي سنت الصلاة والوقوق وولا أبي مسلمين تدباتوا كنا عرو سيدا كتب الحديث صحيحة كتب الصحيحة قريان سنت الصلاة رسولك وكوك قنولي جري مركا أي مصيبة دعوه صلاة الصبح كلية يقولون كلا مقارية له هذا كان سجاء أدبال الجوايا علماء القاربة أضل قاروي الدينين وحين لين دليل الله ما هيو وحين مدارين إنه سيدا صحيح لكن منك كفر ولا يسلادي سويا صحيح لم كلام جرته وحتى ولا يسان قنوتك اللهم اهدني في من هديت الدعاء الليلة رسولك وحو أمري ويلك أشياء يحسن من عليها صلاة وترك مركز الدكان اللي قنوله أما صلاة واجب كان النبي وحو أقول تلقى مصيبة مسلمين تهيت الدعاء مناسبة ساس أقول تلقى مسلمين كمصيبة تهيت الدعاء مناسبة إلا خير كذا الدعاء الدعاء مناسبة لكن وحو أقول تلقى الدعاء المسلمين وأدعوا هذه صلاة الدعاء الله على كبير المدن لكن الله رسولك ألا لي هذه اللي بقول دي لا محبية ليس لك محبية ليس تقول النبي ما يريم قواتها وعلى النبي يريم محبية تجي يقول أنا ولا يقدر لي وأقول أنت هنا ترى النبي ما يريم هذه سنة والكبيرة أقول الخير أولاد جدي ما عمل الدين ياي ما تحب لا يكن سيء ما وقيا لو تجمع مرنايته وحنا النبي مثلا يقولنا ولا ما في النبي مثلا يا مثلا ولا ما كيني جاء كيني تقول ما في مركب قنوت ما تساويه مركب رسول قرآن مدر إمكان يعودي كده الله مسجد ولا سك على مدر واجعلها عليه سنين كثير يوسف أسوى صلاتك الجرا ما هو رجل اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات أيه اللهم انجي سلامة من هشام يعني وحياة من ربيعة ضمك عيوده وترجله دباسة حيثته صلى الله عليه وسلم أسوى صلاتك الجرا قنوتك سنت صلوات الإسلام بها هذه المركز واحفظ يقول حياة مجران قنوتكنا سلا ويان وحويا للسحر حياني دك كدم بي إمامك وآمين سنيان جعمها وزيك إلا مرسلها وبدعة ونبيا كما سبنا ولا آمين سنيان قنوتك ولا لجاريا وهكذا وعلى قرنيا وين كل عيان كان تاسع لجدونيا أتعياك وقدم بي الصلاة واجب وين ما لقيت تجي مركع أتعياك هذا لما يدعوك أي لازم كتير الآخرية ونبيا كسر محاكمة فهو رسولك يقول إذا فرض أحدكم من التشهد الآخر أعطينا أتعياك وقدم بي الصلاة ما كنا من فليستعيذ بالله من أربع أفرهم ولا الله كما ينقلوا هيا على اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم جهنم عذاب كذا كامل ينقليا إيه ومن عذاب القبر عذاب كيسة ومن فتنة المحيا والممات نرسى أن أدونك كنا على السنة الجديدة إله الدين حما يقولنا على يسرع خاتم حمانا هيقول ومن شر فتنة المسيح الدجال دولك كان تاكية في النبي سوى الدجال حرق ولا صوفري دونا جسرته هنا دونا بيوتاجل وذلك إنه إلهي ويشيك دونا من كنوع حسنة إلهي يوفي النيني أجلس صحيحة شيكسة دعنا سيئة ضفل المباراة وشال انتهت
alla ka magan gala farta arrimood salaad kastoo dukata aakhirkeeda ataxiyaadka ugu dambeeya alla ka magan galo nabigu yidhi maxaa yeele waa musiiba cadaabu lqabri waa dhibaato waa marka lagu dhigo cadaabu jahannam waa dhibaato waa kasii dambeeya nolosha iyo geerida in lagugu fidnaya waa dhibaato dajaal inuu inta soo baxa ilahnimo ku jeedsada waa kasii daranta oo diintani waa eber balaayaa kugu dhacday wax meesha ku yaalla ma jiraan marka ducadaas ayada hala baro markaas ka gadaa rasuulku waxau yidhi sala allahu alayh wasalam uma yadcuu linafsihi maa badaa lah wax alla wixii qofka ou jeclaado naftiisa ugu ducaynaya muslim iyo abu cawaane iyo rijaal kale ay xadiidkaa wartay waxau jeclaado ayuu naftiisa ugu ducaynaya markaa ka gadaado oo markaa ducadaa la timaado ducooyin kala badan baa soo aror qaybtaa doonta akri waxaa ku xiga inaad salaamo nafsi la timaado laakiin intaan la salaamo nafsan nabiga ducooyin badan baa ka sugan oo tan akrina ka mid tahay oy ka mid tahay allahuma akfir li maa qadamtu wamaa akartu wamaa asrartu wamaa aclantu ilaa aakhiriha iyo ducooyin kaloo fara badan waxba ducooyinkaas inaan marka daldalno looma baahno qofkii raba waa baran karaya laakiin waxa ugu dambeeya salaadii waa salaamo nafsi rasuulka sala allahu alayh wasalam yusallimu can yamiini midigtiisa u salaamo nafsanaya waxauna odhanayay assalaamu calaykum waraxmat ullah xataa yuraa bayaadu khadi layman ilaa dhafoorkiisa midigta cadaankiisa loo jeedo sidaas dhafoorkiisa ka halkaas ilaa cadaankiisa arkaan وعن يساري هذا أسلام نحسني وهو نورنا السلام عليكم ورحمة الله إلى دفورك سبيل عدانك حتى لك أرسل حديث كان سجى أبو داود النسائي وصوصاري وحديث صحيحة رواية آخر وحي كفر بنا يا أبو داود لي وبركاته أيو نبي كفر بنا يا بن عامل الشام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بن عامل الشام أما بده السلام عليكم ورحمة الله كليويا تاسع نبي كسبا صلى الله عليه وسلم وعن رسولك كسبا إلى ويلا مركو ملك وسلام نحسنيو السلام عليكم ورحمة الله مركو بده وسلام نحسنيو السلام عليكم أو كريئة أو سوحك لك دري نسائب أسنة صحيحة فقرية وحكى رسولك كسبا صلى الله عليه وسلم إنه هل السلام نحسنيو هذا إلى السلام عليكم دين حامل التوير من أحسنه أصوح لك دري السلام عليكم كريئة صاب هذا الحاجة يفتحك وانا لك مركز لكن السلام عليكم أسجلوا على الحاجة من أحسنه sidaas ayaa nabiga ka sugan sala allahu alay wasalam ibnu khusayma iyo bayhaqi baa sanad wanaagsan ku qoraya rasuulku waxau mamnuuca marka salaada la tukanayo gacmaha intaa loo taago dadba markii salaam naqsanaya assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah madaxiina isjebje gacmihina saasta ku hayaan waa maxay waxaasuu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam waxaa loogama baahna salaada gudaheeda salaada adaan madaxaaga lulin waxbana aan samayn gacantuna ay sidii saas kugu tahay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah caadi usoo jeeso taasaa lagaa doonaya salaada gudaheeda markaad ku jirta xarakaadka waa mamnuuc ilaa waxa danu ku keenta mooyaane xarakaadka salaada laga ogol yahay safar hadduu banaanaada waa buuxi kartaa dhibka waa difaacin kartaa adoo salaadaada ku jira aye imaam dad wax baraya haddaa tay midba rasuulka waxau ka hadla haddii ariga kaa imaanaysa canduuf waxa uu sheegay inaad dhinacaaga bidixdaa ku tufto hadday meeshu banaan tahay haddii kale maradaada darifteeda qabo kutuf ee ku jejebi ayuu yidhi sala allahu alayh wasalam sida xadiis saxiixa sheegaysa gacanta dhinaca bidixda weliba ku jejebi ee kutuf uu yidhi sala allahu alayh wasalam sankaaga hadduu qashin ka da-ayo ood ka baqato meesha in la wasaqaydo wala soo baxo warqad ama mara haddaad haysatid isaga tir waa lagu ogolaya laakiin wax intaa ka saa'ida may saaxadday rag eegtaano saasanay leeyihiino haye jisinka hagaagsanayana saasanay ku hayaano maanta dhan haddi maantana waa dukanaya saaskiisa leey saasoo maantana ku hayaa haye yaadiisu dhisi salaada waa ku jirtaa haye meesha gabar miyaa taagan cajiib wey war ilaha laga xisoodo subxana watacala salaada asagoo ku jirta dhisi maanta waa isjiidjiidi ikhwaani rabbiha laga boqo subxaana watacaala waxyaalaha salaada gudaheeda loogama baahna xarakaadka ay dantu keentay oo ama caafimaadkaaga dhib soo gaaro meel iska xogayso ama dhibaata ku hayso waxaan laguma ogolaado salaada ku jira iyo marka dhibaata jirto duruuf macayana duruuftaas oo la doonayo la xaliyo waxyaalaha noocaasa lagu ogolya salaada marka la dukanayo waxyaalaha mamnuuca waa maxay axadku inuu daymadiisa bali reeraha eego maxalka sujuudaad eegeysaa kaliya waxaa lagu ogolaada marka ataxyaadaysa fartaada inaad eegtid inta kale halkaa sujuudda ayaad eegeysaa marka aad salaamo naqsanaysa gacmuhu waa inay sidii ahaadaan xarakaad iyo dhaqdhaqaaq kale iyo maya salaamta salaada looga baxana waa assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu ku dar dhinaca midigtaa bis baa lagu dari karaa bidixda laguma dari karayo marka ikhwaani salaadu sidaas baa loo dukadaa aan wanaajino waxaan idinkugu darayaa laba arrimood arrinta ugu horraysa waxa nacam rasuulku salaada waa ku qufacay sala allahu alay slam qufco cudur weeyaan haddii aad wax kari weyso qufca waa la ogolya rasuulka way ka dhacday haddii aad wax akri kari weyso riiraxyada waa lagu ogolya riiraxya bilaa macnaha mamnuuc weeyaan looma baahna laakiin riiraxyada dan baa kugu keentay hadalkii baa kugu xirmay waa lagu ogolay dhibaato ma lahan
قفعنا ساسو كله دام هذي كانت مشكلة ملعب لكن وحياة قاركم لا تكود وضو وممنوع وحمك يلينكو كورنيا يلا بعد موت أريد أبوها الرئيسة وحوي إخواني صلاة أمريكا اللي دكانيو قفك مسلم كوينه ولا درك أدو كذا أحد بني آدم وصلاة كو حيارة يهضر على توينه دو شاكتا لكن حقيري له هالليدي قفك مسلم كان الحقرة ممنوع مدة كان صلاة كسل وقتك وقال ليس كطافة إذا بدرل وقتك إن قال لي إذا لقاي لي هذا بدل ما كتاجن علماء قار ما قبل الله سوق لين كلام لكن واحد أقول ليس عقوبة على بالله يا الله فك صلاة كسل وقتك وأنا ماشي يا الله عمل إلهي ما ننسى أقبلون هنيك لا أقبلين وصلاة ظهرك يا عشرك عمل إلهي هنيك أقبلون ما ننسى لا أقبلين صلاة محاتم كله سبي عبادة محام نام كله سبي سقط تام بيلاله وفك أن كنت تجي واحد لو يسقط إن وحكته قاريا عجيب وين إلهي صلاة صحراء وسميت عبادة وصيام وسميت من اللي جد كره من اللي جه مري كره إن الله مركي يقول لي سوا من أكبر الكبائر كبائر سوا حقوقهم بيكمثال أعلى الجند كو قراتات جرتا والله مسافر صلاة دي بلاد جوي صلاة قال وصار مريض لكن صلاة كسمن وتجي يا دورك يا عشرك فرض عربي جرت أما حافظا كتجينيو عشاء ولا قلينيا والله الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه الصلاة لأن النصوص عبينه معايا صلاة وقت واللوسمي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله مقري وقت واللوسمي ولا حددي يا كويري كدي مركا هرمري إلى يلا قحصور أرنت سيدا يا لبوك التمر فخلف من بعد ما خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحلا مفتر ما تغال وهذولك الصلاة الوقت يجيبوا قديقيا ربي الله يقبضه أرنت الله ما وحوي إخواني دينت إلهي وحي ضدك أدرتي يا لبوك جدتي والله وحقري أحد جردان ليس قرتي سوى حكي سيجي سو قرر ميجي قف مرالي سقاب صدي وحكي سيجي إخواني هذا يسكئل عليه وحيانا وحاجرة له كفتميه لكن دينتك أسعريه ويا رسولك حديث يا وكيري إن الرجل لا يتكلم بالكلمة وصف كلمة أيه كهرها كلمات أيها مركو قرنية لا يلقي لها بالا أو صندان كرهين ويسجع حيالي يهوي بها في 70 خريفا في جهنم أيها درت أيها صدرات سنة جهنم أبوها بطاونا بقوير وحديث صحيحة مركو أولايا كلمة وإسجع كفتما يوير صلى الله عليه وسلم ثلاثة لو صدرات سنة جهنم أبوها بطاونا بقوير سيد دينتها كملها كفتن مقالو كجاسيس مقالو وحكسيس مقالو الله قاعد يسوي إلهي هذا على أدوب فريكرين أحد كفرية خير الله سيادة وحكا سيد هذا عنيني هذا على توقف من الكفي عن ما يكلم أنت ما كفي عن خير الله بوجه كذا وحلا كذا ما أقول له لكن هكذا ما هدين وحلا صليلي وحلا هذا صليخي بمليه صحيح إخواني أرنت اسمك يعني ربي الله يرضى سبحانه وتعالى وأنا كذا دقيقة يا أرنت نفسي إذا وأنا ودي يا وعن كود حاسس سنة يا المسر ويقول صلى الله عليه وسلم لعل إني أقوله ليه سنة سوحة ويان مهرك وعن أقالي ضد بدن أو علماء عامة استجد رأينا يسندمر كمهرك السين بل إلى جعلهن إلى كل بعض يعني القرآن كوعكيري وآتوا النساء صدقاتهن النحلة دمر كمهر كولاسية اسمه فإن جبنا لكم هذي وحيدين دي أيوة نسيان وأي نبتدوا غالي كتاعي يا فكلها هي المريم مركز لكن السيء حلوه واحد وقال حديث من ماذا كنت وحو شيئا من هدو حول زين سنو حديثك هو حسن أو ندوية إنه سنسكبح إن يده وجرته لقي الله وهو السارع إله أبو الركل ما أسبه السوق حديث معناها لا يأخذ وروري ابن ماجه والسوق منك جبر قرسانية مركو قرسانية ومحرسانية إن يده وجرته معركة كور وليدي ياسين أقول منه سوقي هذا بزاني لو حكمين الحديث لا تنتسينا كل شيء جيسا وضعيف ضعف وبرا وأكثر كده ضعيف في أورنا يبريتاني ونوع أسير ثاني والله كلنا دمر كما مركو السيئة وقدمه هاي وسيئة أكور وليدي حسب بغيسته هذا يرفض عليك حكو سيده هذا يرفض من حديقته هذا يرفض دلي سعودي بتاتي له يقوم بأحمد سرى وحوالي يلوش كلا ربي اللي نسكحي شاطان لمنك مسلمين تو دمر كان غفتا مركو وقدمه فرعك سارة سكة سعوبة ليه هذا الأرض مركو عرض ضلات فرعك سارة أيه هذا من إكرم بريو وحيسي وحنو يجيسه لكن ما ركز بحيه وإلهي تبارك سبحانه وتعالى طيب وحكيت جوابي نعود سؤالات درسكم ندرس نوعك عليه إن شاء الله haddii imaamku xanuunsan yahay oo uu fariisto salaada dhexdeeda dadka kale ma fariisanayaan mise waa istaagtanaanayaan ayagana طيب imaamku hadduu salaada istaag ku bilaabo ee ayadoo dhexda lagu jiro uu fariisto dadka ma'muumiinta salaada istaagay ku wadanayaan istaag ayay ku wadanayaan waxaana loo daliishanayaa xadiidka saxiixa oo ka warramaya nabiga geeridiisii rasuulka sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar oo dadka dujinaya ayuu yimid imaamnimadii nabiga ayaa la wareegay rasuulku fadhiga uu ku dukaday dadka kulligoodna way taagnaayeen istaagay ku dukanayeen laakiin imaamku hadduu salaada fadhi ku bilaabo aad ku xiranaysaa waa inaad la fariisataa haddaad la fariisan weydood istaagaan ku dukanaya ti hadal badan baa ka taagan
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا فضل كجو كذا أمركم صلاة فضلكم بالعبو أو فضل هو بالعبو لكن هذه لورك أمرك اللي ذكره أمرك على ذكره أمرك عبرك اللي ذكره إمامك أو فريسه ما مؤمن تسيري ويتجننا يا أتجنا فضلك وإمامك أهانا يا نعم. سيدا أي الله قبيستا جنابه أحد كقبيسك واجبك الأولى يا جنابه رسولك وحاكسه صلى الله عليه وسلم فرقوا جنابه كما يرانيه أولا هو استنجوني استنجاك كاملة أي والله ما أنا ذكر في سوداء محركة حرارة ثاني هو استنجوني ولو waxa laga doonaya qofku inuu intaan u fariisto marka uu saxaronayo dabadiisa waxa banaanka yimaado u dhaqo waa inuu taas yeelaa marka ka gadaal sunnadu waxay tahay inuu weysa qaato rasuulku marka uu istijoodo gacanta uu ku istijoodo darbiga marin jiray waana biyo raaci jiray waa weysa qaadaysa weysa kaamila weysa kaas waa sunna sida ku sugan Bukhari iyo Muslim iyo qeyrkood oo Aisha iyo ay haweenka nabiga ka warinayaan marka ka gadaal rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameeyay oo waajibku uu yahay inaad soo qaadatid biyo gacmahaaga ku qaadan ama weel waxaan madaxa ku subay saddex jeer ayuu madaxiisa ku subay nabigu inta jirideeda marka ogaado inuu biyaha gaarsiiyay qad arwa bashrata oo gibilka darjiyay afaada calayha almaa biyaha jirkiisa dhan buu ku subay sallallahu alayhi wasallam marka qubayska waajibka loo imaanayo ninka iyo haweenku waa islaami hal meel ay haweentu uga bedelan tahay inantu markay janaaba ka mayranayso waa qubayska aan xayka ahayn ay ka mayranayso tinta inay furfurtaa waajib kuma ahan xayka laftigiisa culimada way isku haysataa oo riwaayad baa jirta hadal ku jiro laakiin janaaba markay ka mayranayso tinta u xirxiran ayay biyaha jirida ka gelinaysaa waatay ku jiro nabiga umu salama afa anquduhu liqatl aljanaaba janaabada markaan ka mayranayo tinta ma furfuraa iska day baa lagu yidhi ee ku subiyo laakiin raggu waa waajib inay tintooda furfuran tahay meel kasta ay biyaha gaarsiiyaan rag iyo dumar waxaa waajibku ah dhagaha laalaabkooda in biyaha la gaarsiiyo in la luqluqdo in la sandaarsado marka qubays waajiba lala imaanayo haddaad luqluqashada ka tagto iyo sanka biyaha la gelinayo iyo dhagaha laalaabkooda biyaha la gelinayo qubayskaama ansaxayo qubayskaagii ma jiro waa inaad dib ugu laabataa jirkaaga oo dhan waa inaad biyaha gaarsiidaa la soco sidaa ayada rasuulka ilaahay sidaas ayuu sameeyey amarna ku bixiyey muslimiintana waajibka wa in kuntum junuban fadaharu rag iyo dumarba biyaha lagu mayranayo weel af banaan oo faniin ku gaara in lagu mayrtaa nabiga ka sugan tahay Aisha waxay leedahay weel baan dhexda dhiganayn anagoo janaaba ka mayranayna aniga rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaan gacmaha dardarsanayn weel af banaan oo gacmaha la darsana biyo waa gelayaan biyaha faniinka oo weelka gaaraya waxba ka dhibi maayaan waxaan soo qaadanayaa beel waa ku mayranaya kirli baan soo qaadanaya ma jirto oon gadaal iska raacinaya arrin jirta maahan weelka oo biyuhu ku faninayo nabigu ku mayranayo Bukhari bay ku sugantahay oo Muslim bay ku sugantahay sunanka qoraya weel af banaan inuu nabigu ku mayranayo oo faniinku gaarayo rasuulkana biyo ay gawar soo reebto ku way saqaada rabay janaaba ka mayratay markaasay janaaba qaban ku soo mayrtay in almaa la yutnibu biyo janaaba ma qaban buu hadaa lagu janaaba qabtay fariinkayga gaarabaysay biyo janaaba ma qaban buu ma janaabo biyo ala janaaba la qabay waa biyo ay gawar ku soo mayratay oo qubays waajib ay ugu mayro fariin gaaray oo weel af banaan ku jiray buu nabigu ku way saqaada sallallahu alayhi wasallam marka waxa waajib ah jirka in biyaha la gaarsiiyo istajada in la ilaaliyo meelaha laalaabka sankaaga iyo meelaha gulaala iyo waa in biyaha galgaliya yani tintaada iyo aad lugaha farooda iyo meel walba haweenta bis baa loo ogolaya tinta inaysan furfurin oo jirida gaarsiiyo bacdama gabadha hadday reer leedahay laga yaabo inay mara badan qubays u baahato markay tinta furfurtana qalajinteeda ku dhibaatooto saa darteed inay soo haway kale xirtaan loo ogolaado sidax ma ahan waa soomidimada xaaliga sidii iyo gabdhaha baadiyaha la oqon jiray kaa ma ahan kaas diinu ma sheegin wuxuu meelo ku yaalana ma aqaan tinta laga hadlayana waa tinta lagu aan leedahay buruka ka hadli maayo balaayo la saara iyo barakable lagu xiray wax daran kama hadlintaas nacam waxaan la yaabay arrintan ee haddii ay diintu ku jirto waxa igaaga sheeg waxaa jirta in mu'adinku marka uu marayo ashhadu an laa ilaaha ila allah ama uu marayo ashhadu anna muxammadan rasuulullah in ay jiraan dad suurashooda dhunkada oo indhaha iska marmariya haddaba maxaa ka jira arrintaas dadka suurashooda dhunkada markaa ee yidhaahda saas ku yidhaahda ama akriya marxaban bixabiibi wa qurati cayni maxamed ibni cabdillah ee indhaha marsada ee qaba indhaha daab kuma dhaco waa wax baatila oo bidcaan meelay ku sugan la garanayo suurashaa dhunkanana maba jirto laakiin nin daylami la yidhaha musnadkiisa ayaa wuxuu ku qoray xadiid aad u taag daran oo daciifa waxba ka jirin oo odhanaya marxaban bixabiibi wa qurati cayni haddaad tidhaahdo oo suurasha ku afudi oo yani dhagax indhaha marisid daab kugu dhici maayo waa markaad waxaas akrido buu kuleeyahay waa low xadiidka la sugaya xadiidkana muxadisiin ba kulli waxay leeyihin waa daciif wax ka jira ma jiraan nabigana kama sugna ama suuro inta la dhunkado meeshaan la iska mariyo wax ka jira iyo meelay ku taala lama garanayo waa jini kuwaday dadka ugu indha beerka badan oo kuwiisaas indhaha kudhihi jiraba aawo indhihi maxay mar hore loogu sheegi waaya haddii indhaha lagu caafimaado nacam
markaan sadaqa bixiyo ama shay bixiyo dad baa waxay yidhaahdaan rasuulka allaha gaarsiiyo maxaa ka jira arrintaasi? rasuulka sala allahu alayh wasalam allaha gaarsiiyo horta meelay ku qoranta ma lahan, lamana garanayo rasuulka sadaqa loo bixiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. waxaa la garanaya rasuulka in lagu saliyo, dariiqiisa la maro, diintiisa lagu dhaqmo, dadka loogu yeedho. nabigu waxa uu darajo ku yeeshaa in lagu saliyo, in sunadiisa la nooleeyo, taasaana sharaf u ah. lagama hayo asxaabu rasuulillah walaa salafu saalix nin intay sadaqa bixiyay nabiga allaha gaarsiiyo. sadaqada dadka inay gaaraysa diin loo hayana oo aabbaha iyo hooyada, aabbaha iyo hooyada dadkaas ayay diintu ka warrantay. awowaha tobnaadii awowgii yani laga soo askomo laga yimid oo meel ka yimid aan la oqoonayo, waxa loo bixinayo meel ay wax ay yihiin lama garanayo. diintu meel ay ku sheegtay inay dadkaas sadaqa gaaraysaa lama hayo. waxaa nabiga laga hayaa aabbaha iyo hooyada. hadday islaam ahaayeen waxaa gaarsiiya aanu bixinaa waxbay ku tarin buu yidhi. ducadu waxbay ku taraysaa. dadka dhintay oo islaamka ah waxa inay wax ku tarayaan la ogyahay. wa rabbana ighfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina dillan liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim. ducadaas ayadaasay u waramaydo wax alla waxa ducadaasa oo istikfaarta ah rabbana ighfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan. intii diinta nooga horreyda ilah u dambi dhaaf, taasaa ilahay laga hayaa. rasuulka lagama hayo awowasanaad sadaqa u bixiya. rasuulka lagama hayo ugaashadar sadaqa u bixiya. rasuulka lagama hayo hebelkaala wax usoo dhiiba, lagama hayo rasuulka. haddii rasuul lagu dayanayo arrintaa laga tago. nabiga allaha gaarsiiya, sheekadu saas maaha. nabiga maxaa la gaarsiinaya? waa nabigu markuu adduunka joogo noolay sadaqa ma qaadan jirin. hadda markuu dhinto cunaa miya? hadda cunaa. hadda asaga u bixinayna, xoolaa asaga u qalayna. xageese waxyaalaha yaabka badan waxaa kamid a hal arrin aan xasuusin. shay haddaadan ogeyn meesha uu tegayo, qofka dhintay waxyaalaha uu tegaya adigu miyaad og tahay? soo kaama qarsoomin. yaa og qofka dhintay waxa wax ku taraya? ilaahba og soo maahan. ilaahaga u sheegay, nabigiisa usoo sheegay. nabigu meel uu ku sheega ma lahaya dadkan wax loo bixiyo. ama aniga wax iisoo bixiya maya. haddaan lahayn hadda naga daaya. haddii lahayn ordaan noo keenaan meesha hilbaa ka cunne laxaa lagu qaraan. maalin walba anaana tan ridii nabiga wayaan, tan ridii awogo wayaan, tan ridii awogo filaan wayaan. saasa lagu haye oysan hayn hala iska daayo. sirarka ay qabaa'ilku yaqaaniin oo ay ku xusayaan odayaasha ay ka yimideen waa la soo ilbaxay. hadda awliyo cusubaa timid oo yani odaha wiil la yidhaha waxa la yidhi waa awliyo, ola la yidhaha gabarti waxa la yidhi waa awliyo, ola la yidhaha isxaaq waxa la yidhi waa awliyo. waa saddex awliyo. xaggay ka yimideen? maxay ahaayeen horta? yaa yaqaan? maxabasay ahaayeen? maxaariya nin yaqaan ma jiro. awliyo waan xusaynaa. hay sadaqadii hebel baan ku jirnaa. waayo sadaqada in kala yar maxay ahaayeen? hay diinta xaggay ku sheegaysa waxaan? war ilaha laga bao dadka xoolooyaan baadi lagu cuni. dadkaana awliye inay yihiin in kale ilaah baa garanaya. laa tasubu lamwaat, dadka dhinta ha caayinin ayuu nabigu yidhi. fa inahum qad afdaw ilaa maa qadamuu, waxay hormarsadeen ayay gaareen, waxay samaysteen ayay la kulmayaan. faraha ka qaada, taasoo nabigu nagu ogaa. aan iska dayno farahan ka qaadno. ducadaa rabbana ighfir lana intii iimaan la anfacaysa. waalidka haddaad khayr ku ogad wax u bixi, inta kala faraha ka qaad. meel kale diina laguma hayo. waa haddii wanaag la doonayo. haddaan wanaag la doonayo meelaha la maraysa sadaqadii waa la diiday. bidaca soo baad ordaha sadaqada naga rabnin noo keena daliil aan ku cunno. cuntada waa jarnaa. nacam. haddii aad safar gasho oo aad soo noqoto habeennimadii guraaga ma tegi kartaa? ninka musaafirka oo socdaalka ah oo safar ku maqnaa, rasuulku waxau yidhi sala allahu alayh wasalam, axadkiin hadduu muddo badan maqnaa falaa yatruk ahlahu laylan, yousan habeenkii kusoo guuraynin aqalkiisa. haddaad digtiin soo bixiday oo teleefon u soo dirtay oo warbixintaadu timid oo inaad habeen habeen soo gelaysa la ogyahay laa ba'sa, muskila ma jirto. laakiin reerkaagii oo warbixin kaa haysan oo muddo ka maqnayd ha ku soo guurayn buu nabigu yidhi. nusuus saxiixa ku soo aroortay. waxaana la doonayaa in inta laga maqna inay isdiyaariso likay tastaxida almugiiba. say u xiirato caanada inantii laga maqnaa. watamtashida saifa, sintu miday ka basaatan ay u shalaysato. habluhu ha isdiyaariyeen ee ha u gelinin oo nabigu yidhi ayagoo idinka war haynin. muddaad maqneed nimanka waxay yaqaaneen soomaalida khaa'iniinta yihiin. safar fog baan aadayaa, xagga inta ka soo jiidayo meelahay awrta soo marto oo aqal ku soo laabay asagoo naagta u kontaroola. khaayin wey ninka noocaasa. waxuna raadinaya naagta ceebteeda. mana banaana wax noocaasa. qofka ceebtiisa lama tadabuco. rabbi ha laga boqo subxaana watacaala. maxaa loo diidaya inaad ku soo dheelmatid ayadoon lagaa warhayn? waxaa lagu diidayaa waxyaala aad ka naxdid inaad meesha ku aragtid oo kaleeta ka dhaliya. ama waxaa laga yaabaa dumar kale inay sariirtaba ku jiifanaya meeshahay oy gabadha la jiifaan. waxyaala badan baa dhici kara. waxaa dhici karta qofkaan inay si u kala daadsan tahay. waxyaalo badan baa suuragala. sidaa darteed rasuulka alla waxau yidhi ninka aqalkiisa muddo ka maqnaa you ku soo dheelmanin. barqanimo ha yimaado, mar la kala soofo caadi arrin iska tahay. haddii kale war soo dir oo adduunka ilaahay maanta wuu fudiyo teleefonaa jira, teleefon soo dir. warqad u soo diro markaad ogaatid in lagu ogyahay ha u imaad. haddii kale hoteel la seexo. rasuulku masaajidku soo bilaabi jiray, laba ragcoo ku dukan jiro ilahay uga shukrinaya alla soo nabad celiyey. aqalkiisa markaa aadi jiray markii la ogaado inuu meesha yimid. salawatullahi wasalam arrinta saas yahay. marka ikhwaani aan dadaalno, su-aalaha waktiga kale aan ka jawaab intaasaan ku jeesi doonaa. aan dadaalno oo dad islaama noqono. waxaan idin xasuusinayaa haddaan nabiga ku dayanno hawtiisana waan ka cabaynayna waana noo shafeecaya.
جنة علينا وانجلينا إيش أن سلا قلنا كده يا النبي اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمين